arrintii way dhawowday. waxa weeye reerkeena de sidii buu u dhisan yahay. dad badan ba waxay lahaayeen, dad badan ba waxay commentiga kusoo qorayeen. idinka waa soo qorteen waa iskaranaysaan, waa ogtiin intii soo qortay waa iskaranaysaan. laakiin commentiga dadka hambaliyada iyo maxay hayday garab istaaga lagu reer dhisane, garab istaaga halkaa kasii wada. wax fiican soo qora, positive weligan ka raaca. Soomaalida waxaan arkay badankeeda inkastoo Soomaalidu iska dad faniya tahay oo dad baa commentiyada usoo galay inay commentida akhriyaan videoga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Shaafi oo idin kusoo dhawaada channelkeena Shaafi Films and Vlogs. waxaad leeyahay asxaabteeda intii hore igu jirtay inta imika igu soo kordhaysa ama igu soo asxaab ila noqonaysa ama asxaab la noqon doona dhamaantiin waan salaamaya. idinkuna subscribe iyo share iyo intii la idinka rabay meesha dhulka naga qaada Chinese baan la tartamayna. Chinese aan mar wada bilownay, Chinese kan la tartamayna. intaa kadib caawa waxa dabada ka muuqda legend iyo legended waxa weeye Cawaaladeer iyo Najma Nashaad oo in badan xaaladoodu ay yara kacsanayd, yani dabaysh yara kacsanayd. imika ma sha Allah reerkii oo sidii hore iska bedelay oo kusoo noqday maxay ahayd reerkii hore dhisnaa oo hambalyeynayna mar labaad. ana mar hore soo hambalyeynay markay iskuulsanay baa soo hambalyeynay, haddana waa hambalyeynayna mar labaad. waxa weeye de mid ay kala maqnaayeen, hawshu iska ay xumayd, yani guri iyo qof guri deganaa oo laba caruur meesha ay joogto oo hawl meesha taalo, waxaan ku caruur meesha joogto. labada qof ma kala go'ayaan, marnaba ma kala go'ayaan. laba qof oo caruur isu dhalay oo caruur dhex taalo oo labada qof isla hadloon, balse haddana maadaama ay khilaaf yara dhex taagnaa labadeeda dhexdooda, dadkuna badanaa way kala tageen. caynkan wadaas imika reerku waa degan yahay, faraha kala baxaan leenahay. Cawaaladeer waa legend, waa nin degan, aad u degan boqolkiiba boqol. yani aan maxay hayday waxaan arkay waa labadii qof ee indhaweyd basi iyagoo isku dhacsan, haddana war anagu dadka ruuxa sheegaysaan waa been, waxba kama jiraan, ruuxa la shirmanina, yani deganaan hawsha ku waday. hadda hees cusub baa ayuu qaaday Cawaaladeer, bal heestaan yara dhageysano. ta kale horta waxa weeye heestaasna loo qaaday Najma Nashaad. hawshii hore waa dhamaatay baa leeyahay, hawshii hore waa dhamaatay inaga daa. marka waxa weeye horta waan hambalyeynayna dhamaantayo aniga iyo dadka ila midka. waa ka arrintii way dhawowday, waa taas. marka arrintii way dhawowday. waxa weeye reerkeena de sidii buu u dhisan yahay. dad badan ba waxay lahaayeen, dad badan ba waxay commentiga kusoo qorayeen. idinka waa soo qorteen waa iskaranaysaan, waa ogtiin intii soo qortay waa iskaranaysaan. laakiin commentiga dadka hambaliyada iyo maxay hayday garab istaaga lagu reer dhisane, garab istaaga halkaa kasii wada. wax fiican soo qora, positive weligan ka raaca. Soomaalida waxaan arkay badankeeda inkastoo Soomaalidu iska dad faniya tahay oo dad baa commentiyada usoo galay inay commentida akhriyaan. video la soo gelinaya commentiga marka ku dhufanaya si commentiga ay u eegaan waxyaabaha lagu soo qoray. marka haddaad ka mid tahay dadka commentiga marka ugu horeeya commentiga akhriya ee raadiya, haddii aad ka mid tahay xagga hoose isku soo sheeg. dad badan baa ka mid ah Soomaalida. waxaan arkay meelaha TikTok oo kale iyo maxay hayday wax la soo dhigo badanaa dad imse qof baa ila mida oo usoo galay meeshan comment akhris. marka waan is ognahay commentiga aad baa u jeceshihiin, laakiin jeclaada oo positive jeclaada oo positive qofka u qora, jeclaada oo hadal kaftana ku dhaha, laakiin noloshiisa gaarka iyo samayskiisa iyo hawlihiisa ha gelina. taas way fiican tahay. noloshiisa gaarka waxaan ka wadaa laba qof marka ay isqabaan ama isguursadaan ama yani taa ha gelina. labadan qof si ay yihiin iyo kanu si uu yahay iyo sida uu noqon lahaa iyo hawsha ha gelina. laakiin labadan qof hambaliyo farxad inaa kusoo qortaa intaas wax badan ma yeeliso. dadkana
dadka u qoraysaana wax badan oo faa'iido bay u noqonaysaa, farxad bay siinaysaa. marka hadalka ayaan ku dheeraan, waxun baan ka wadaa in reerka la soo dhaweeyo mar labaad, hambaliyada meelaha la soo dhigo commentiyada, hambaliyo looga qoro iyaga qudhooda maxay la soo dhaweeyo, dadka la joogaa ay soo dhaweeyaan. te waa reer soo noqday. reerku hadduu saa ku kala tegi lahaa, reer Soomaaliyeed oo dumay buu noqon lahaa, guri dumay ayuu noqon lahaa. laakiin guri dhisan maanta haddaad kusoo hagaagto guri dhisan, dee qof kasta waa ku farxaya. idinku waxaa ku faraxdaan guri dumay baa ku faraxdaan, ma maya de. marka ha la soo dhaweeyo oo reerka ha la soo dhaweeyo oo ha loo kaco oo arrinta halkaa laga wado. labadan qof in ay sii wada joogaan, inta qof ay rabtay oona hambalyeynayna, oo ay aniga iyo groupkayga iyo teamkayga Shafi Films and Vlogs ay ugu horeeyaan hambalyadayna bartan ka dirayna. waxa weeye dad baa dee lahaa nashaad hadda intii cawaaladeer kadib bay hawadaha xidigaha martay calka oo ruuxa weeye. markii horeba nashaad waxay ahayd qof caana, waxay ahayd qof fanaanad buuxda bay ahayd, fanaanad aada loo dhageysto, aada loogu xidhan yahay. de halkeedii uunba qofkuna fanka halkii taagnaan maayay ee horuusi soconaya. marka hadda imika iyada oo cawaaladeer isku reer dhisan yihiin, haddana bartii uunbay sheekadii maxay ahayd fankii ka soconay, hore usii soconay. sanadka dambe haddaynu noolaano insha allah sidii hore ha ugu soo hagaagina, waa hore socod badan baa laga sameynaya. heestana waa hees aada u macaan horta. kaadooyin ubaxyale kadis ugu keentay. waxa weeye sheekada isagoo odaygu aslada hawshii waa isbedeshay oo dee saas ayaa marqula iga qabo kaadooyinka. waxa dad badan ma kaadooga garanay. kaadooga waxa weeye hadiyadaha la isu keeno marka de qof marka aroosyadoo kale, marka qof aad jecesho kale u geynayso. kaadooga waa hadiyad ahaan nacdo calaa kulli xaal. marka kaadooga ubaxyale kadis ugu keentay waqti kadis oo aanan filanayn ay ii dhiibtay buu leeyahay. marka waxa weeye horta cawaaladeena waxaan leenahay waa legend aan aada u ixtiraano, aada u soo dhaweynino walaalkayo. waa nin degan boqolkiiba boqol, inta qof bil aadana degan yahay buu degan yahay. najmina sidoo kale, najminashaad waa in badan baa la weydiiyey, su-aalo badan la weydiiyey, single miyaa tahay, caynkan miyaa tahay, waa ka boodiyo dhahaa su-aasha. iyadoo khilaaf kastaa jiro, dhibaato kastaa jirta, haddana kumay degdegeen. waxay lahayd halkaa igaga jooji, su-aashaas way iga xiran tahay. marka caawa wax kale ma wadno, soo dhaweyn iyo maxay ahayday taageerid aan taageerina labada fanaan aan leenahay halkaa kasii wada. waxaan ku reerka mar buu sigtay, wixii dambe inaga joojiya. halkaa lagama tuuri karo reerka, qarkaa lagama tuuri karo. reerku waa reer dhisan, waa reer degan, caruur yar oo qurux badan baa meeshii taalla joogta jirta. waxaan leenahay ka daaya caruurtaasu ma arki karaan waxaas. had la daayo, reerkaas ha dhisnaado. anaguna waa soo dhaweyna. heestana waxaan leenahay, heestana waa hees dareen ku timi. heestana waa hees dareen ku timi, waqtigeedii timi, waqtigii loo baahnaa, alwaqti almunaasib bay timi horta heestana. markaa saxaabteeda waxaad leeyahay dee idinkuna bartaa, idinkuna dee hambalyada uga dira dadka maskaxda horta moogta. qalbi jibinta ka daaya dadka, qalbi jibinta ka daaya dadka. maasha allah walba waa isku soo baxayseen, waa isku fiican tihiin, yaa loo soo qoraa dadka. laakiin haddaad balaayo kale u qortaan iyo waxay qori jirteen, wixii aad qori jirteen garanaysaa dadka inta commentiga qori jirto, wixii aad qori jirteen haddaad sii qortaan de waxa weeye dadka qalbi jabka ka daaya. haddaa ka dayn weydaan niyadiina ku haysta oo meelaha ka sheegina. marka maasha allah reerkaas hortay waxa weeye oo loo kacay oo la soo dhaweynaya. xaflado badan baa loo qabanaya oo soo dhaweyna ah. waxa weeye de in badan ba dhegta loo taagay. war goormay dhacaysaa, goormaa la isku soo noqonaya, war goormay dhacaysaa. alcawaale mahad najma
xagee ku hordamaysa ma kala tageen dad baa dhegtu saa u dheeray halkaa maraysa dhegtiini jarta daboosha waxa ma jiraan meesha hawshii sideedii hore kusoo noqotay sideedii hore ay kusoo noqotay reerkuna sidii buu u dhisan yahay imika war hadda ma maqlaysaan oo maqlayaan marka waa hambaliyaasan caawadna heestana waxa weeye heestana waa waka odayg waa heesta horta waxba laydin sharax maayo ereyada si fiican baa fahmaysaan in laydin fasirana ma aha anadin baqashigi waxaan kaga tagayaa sida iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheerta like-ta subscribe-ta commentiga hawsha bartiina ka wada meesha naakiciya kor inoo qaada wiigii shanaad baan galeynaa imika wiigii shanaad waa 5 wiig waa bil iyo dheeraad soo socda markaa kor inoo kiciyo halkan naakixaya insha Allah waxaad ka tagay inta فيديو قلبات كان كل حاجة أركض أنا واحد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.